kulanti wacan saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaa ku jirnaa casharadeenii 11 in Deutschland oo ah su'aalo ka kooban 300 su'aalood isla markaana ah shahaadooyinka la isku weydiiyo qofka marka hore inuu xareysto sharciga degnaanshaha wadanka ama sidoo kale sharciga weynka ah ee wadanka ama sharciga citizenka mid kamid asxaabta ayaa wuxuu isoo weydiiyey waa maxay farqiga u dhexeeyo su'aalaha 11 in Deutschland iyo sidoo kale Einbürgerungstest run ahaantii waa isku mid waa isla su'aalihii leebis oo laakiin magacii la kala wareejiyey haddii oo qofka hore shahaadan u haysto ma marayo imtixaanka lagu magacaabo Einbürgerungstest maxaa yeelay hore ayuu usoo maray shahaadadana u haysta intiina badan waa taqaanaan qofka markuu wadanka soo galo waa loo diraa 11 in Deutschland qaar ayaa shahaadooyinka soo qaata qaarna ma soo qaataan qaar kuwa soo qaatana inta badan su'aalaha macnahooda saad uma fahansana sidaa darteed waxaa go'aansanay in aan 300 su'aaloodba inta ku sharaxno dhammaantooda hore waxaa usoo qaadanay 1 ilaa 20 haddii aadan daawan waxaa ka daawan doontaa linkiga kor kasoo muuqan doona maanta waxaa ka bilaabeynaa su'aasha 21 ilaa iyo su'aasha 40 sidoo kalena maalin waxaa soo geli doonaa 20 waxaana gaarsiin doonaa ilaa iyo 300 haddii ilaa yiraahdo su'aasha 21aad wuxuu ku leeyahay welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland waa maxay ayuu ku leeyahay astaanta ama calaamada lagu garto wadanka Jarmalka astaan afar astaamood taala meeshan oo ah tan koobaad xayawaankan gogolka ah ee meesha ku sawiran kan labaad calaamadan beeda ah ee xaada saaran tan saddexaad ayadana ah calaamadan istilaabka ah calanka ingiriiska yar eg iyo tan afraad oo ayadana ah astaantan meesha ku sawiran marka wuxuu ku leeyahay afartan qaybood qaybtee ayaa ah ayuu ku leeyahay calaamada ama astaanta wadanka Jarmalka waxa saxda waxay tahay saaxiibayaal calaamada koobaad oo ah gorgorka meesha ku sawiran oo u taagan astaanta ama calaamada wadanka Jarmalka uu leeyahay su'aasha 22aad wuxuu leeyahay was für ein Staatsform hat Deutschland Jarmalka qaab dawlad noocee ah ayuu leeyahay ayuu ku leeyahay a wuxuu ku leeyahay monarchy qaab boqortooyo dawlad oo qaab boqortooyo leh ayuu leeyahay ayuu ku leeyahay su'aasha labaadna dictator wadan qaab dawlad oo kala talisnimo ayuu leeyahay su'aasha saddexaad republic ayuu leeyahay oo qaab republic ah iyo tan u dambaysa ayadan de oo ah fürstentum marka ayadana tee ayaa sax ayuu ku leeyahay su'aasha oo ahayd dawladda Jarmalka qaab form ama qaab dawlad noocee ay leedahay waxa way macnaheeda qaab republic ah oo wixii dhahan Bundesrepublik Deutschland oo qaab republic ah ayuu leeyahay oo dictator ama ahan qaab boqortooyo ma ahan waa qaab republic ah su'aasha 23aad wuxuu ku leeyahay in Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen waxaa la dadka shaqeeya dadka ugu badan ee Jarmalka ee shaqeeya a waxay ka shaqeeyaan oo ku leeyahay by eine Firma oder Behörde beschäftigt waxay ka shaqeeyaan shirkad ama xarumo dawlad ay ka shaqeeyaan b in kleinen Familienunternehmer beschäftigt ganacsiyo family oo yar ah ayay ka shaqeeyaan oo ku leeyahay iyo c ehrenamtliche für ein Bundesland tätig maamul goboleed kamid ah ayay waxay ugu shaqeeyaan si ehrenamtlich waxa la qofka markuu si mutadawacnimo ah ku shaqeynayo ama si bilaash ah ku shaqeynayo iyo d ta u dambayso ah selbstständig mit ein eigen Firma tätig selbstständig waxa qofka markuu si naft kaligiis u shaqeysanayo oo qofna u shaqeynaynin ay companiyo ay si ay iska leeyihiin ay ka shaqeeyaan ayuu ku leeyahay marka teeba sax ah su'aashana la weydiiyey oo ahayd dadka Jarmalka inta badan waxa ay ka shaqeeyaan jawaabteedu waxa waaye by ein Firma oder Behörde beschäftigt waxay ka shaqeeyaan inta badan ama shaqaale ay ka yihiin shirkado ama xarumo dawlad ay ka shaqeeyaan oo dadka shirkadaha iska leh oo ama dadka si mudawacnimo u shaqeeya waa dad aad u yar dad saad u badan maaha laakiin dadka inta badan Jarmalka jooga waa dad shaqaale ah ee shirkado ka shaqeeya ama xarumo dawladeed ka shaqeeya sida wasaaradaha iyo waxyaabo kale oo la mid ah su'aasha 24aad wuxuu ku leeyahay wie viel Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland meeqo maamul goboleed ayuu leeyahay Bundesländer waxa la maamul goboleedyada ayuu leeyahay wadanka Jarmalka a 14 maamul goboleed ayuu leeyahay b 15 maamul goboleed ayuu leeyahay c 16 maamul goboleed iyo d oo aydan ah 17 maamul goboleed marka teeba sax ah soo su'aashan la weydiiyay oo ahayd wadanka Jarmalka meeqa maamul goboleed ayuu leeyahay waxa sax ah 16 maamul goboleed oo Jarmalka wuxuu ka kooban yahay 16 maamul goboleed
su-aashan labaatanaad wuxuu ku leeyahay was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland wuxuu ku leeyahay keebaan ahayn maamul goboleed qodobada soo socto keebaan ka mid ahayn ayuu ku leeyahay maamul goboleedka a Nordrhein-Westfalen b Elsass-Lothringen c Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt keebaan markaan intaan ahayn ayuu ku leeyahay maamul goboleed waxa saxda ah waxay tahay Elsass-Lothringen ma ahan maamul goboleed oo saddexdan kaleetood kale ayaa maamul goboleed ah su-aasha 26aad wuxuu ku leeyahay Deutschland ist Jarmalka waa ein kommunistische Republik b ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ein kapitalistische und soziale Monarchie iyo d oo ayadan ah ein sozial und sozialistische Bundesstaat marka ayadan teeba sax ah su-aasha taxda waxay tahay Deutschland war ein demokratischer und sozialer Bundesstaat Jarmalka waa wadan demokrati ah isla markaana wadan social ah socialka waxaa macnaheeda in wadanka form social oo ka jira in qofka haddii uu shaqeyno ka lacag heli karo in qofka guryo social oo heli karo in qofka mangeliyo ka dalba karo iyo waxyaabo kale oo kala mid ah marka Jarmalka waa demokratische und soziale Bundesstaat su-aasha 27aad wuxuu ku leeyahay Deutschland ist haddana marka la Jarmalka waa ein sozialistischer Staat ein Bundesstaat ein Diktator iyo u dambaysa aydan ah ein Monarchie su-aalaha ku aan soo dhaafno waaye wuxuu ku leeyahay marka Jarmalka waxa waaye ein Bundesstaat waa ku leeyahay Bundesstaat waxa macnaheeda maamul goboleed waa wadan maamul goboleed ah Jarmalka wer wählt in Deutschland die Abgeordnete zum Bundestag wuxuu ku leeyahay yaa u codeeya ayuu ku leeyahay wählt ama wählen waa erey codeynta qofka markuu codeynayo yaa Abgeordnetena waxa waaye xildhibaanada Bundestagna waxaa meesha fadhiistan ee Berlin ku taal marka yaa u dira ayuu ku leeyahay ama u codeeya xildhibaanada Bundestag yaa u codeeya ayuu ku leeyahay a das militariga ayaa u codeeya ayuu ku leeyahay die Wirtschaft dhaqaalaha ayaa qof walba dhaqaalihiisa ayaa geehaya ayuu ku leeyahay meesha das wahlberechtigte Volk dadka xaqa u leh inay codeeyaan ama shacabka xaqa u leh inay codeeyaan die Verwaltung ama maamulka ayaa codeeya ayaa geehaya ku leeyahay marka teeba sax ah wax saxda waxay tahay marka xildhibaanada aada Bundestaga ama xarunta baarlamaanka Jarmalka waxa u codeeya waxay tahay das wahlberechtigte Volk shacabka xaqa u leh in ay codeeyaan ayaa u codeeya xildhibaanada saas ayayna ku tagaan xarunta baarlamaanka su-aasha 9aad wuxuu ku leeyahay welches Tier ist das Wabentier der Bundesrepublik Deutschland xayawaankee ayaa ah ayuu ku leeyahay astaanta xayawaanada Jarmalka tee ah waa ayuu ku leeyahay a Löwe libaaxa adla gorgorka b waxa waaye orso sawir ahaan baan tusin doonaa inaad orsin la marinaa iyo sidoo kale d ferd ama faraska ayaa ah ayuu ku leeyahay ayadan teeba sax su-aasha taxda waxay tahay hadaya waa soo aragnay calaamada adlaha ama gorgorka ayaa ah astaanta Jarmalka su-aasha 30aad wuxuu ku leeyahay was ist kein Merkmal unserer Demokratie maxaana ka mid ahayn ayuu ku leeyahay calaamadaha ama astaamaha dimuqraatiga wadanka Jarmalka a regelmäßige Wahlen in si joogto ah ee u dhacdo doorashada b Pressezensur faafareebka saxaafadda Meinungsfreiheit in qofka xur u yahay ra'yigiisa iyo d verschiedene Parteien xisbiyada kala duwan teeba sax ah marka waxa ka mid ah ayuu waxa waaye ku leeyahay waxyaabahan ka mid ahayn dimuqraatiga wadanka in faafareebka saxaafadda ama saxaafadda la faafareebo waxyaabo kale la mid ah 31 Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland wuxuu ku leeyahay 31 Die Zusammenarbeit von Parteien wada shaqeynta xisbiyada zur Bildung einer Regierung ku dhisayaan dowladda in xisbiyada marka wada shaqeeyaan xisbiyada ama isku imaadaan xisbiyada ay si ay ku dhisaan dowlad waxaa lagu magacaabaa Jarmalka ayuu ku leeyahay a Einheit wadajir Koalition isbahaysi c Ministerium wasaarad iyo Fraction xisbi ka tirsan baarlamaanka soo marka aydan teeba sax ayuu ku leeyahay waxa saxda waxay tahay markii ay laba dowlad ama ay isku tagaan laba partay ama xisbiye isku tagaan waxaa lagu magacaabaa Coalition oo ah isbahaysi oo si laba xisbi oo isbahaystay ayaa waxay dhisayaan dowlad su-aasha 32aad wuxuu ku leeyahay was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland maxaanan ahayn ayuu ku leeyahay
rabshad dowlad waxaa ahayn ayuu ku leeyahay Gesetzgebung in sharciga dhiiba bixiya b Regierung dowladda presse saxaafadda iyo sidoo kaleeto Rechtsprechung ku hadla saxaafad u hadla ayadan teeba sax waxa saxda waxay tahay Regierung dowlad baan ahayn staatliche Gewalt su-aasha 33 wuxuu ku leeyahay welche Aussage ist richtig sentence soo socda kee ayaa sax ayuu ku leeyahay in Deutschland Jarmalka sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt wuxuu ku leeyahay staat dowladda iyo qolooyinka diimaha waa kala soocan yihiin ayuu ku leeyahay oo dowladda waxay sameystaa qolada diimahana xoolooda ayay sameystaan ayuu ku leeyahay b bilden die Religionsgemeinschaft den Staat diimaha qolooyinka diimaha ayaa dowladda dhisaan ayuu ku leeyahay c ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften dowladda way ka madax banaantahay ayuu ku leeyahay qolooyinka diimaha iyo ta u dambayso aydan bilden Staat und Religionsgemeinschaften ein Einheit dowladda iyo qolooyinka diimahaba si wadajir ah ay isku midaysan yihiin ayuu ku leeyahay wadajir ay sameeyaan aydan teeba sax ah marka su-aashan la weydiiyay oo ahayd sentence socda keeba sax ah waxa saxda waxay tahay in Deutschland Jarmalka gudihiisa sind Staat und Religionsgemeinschaft voneinander getrennt dowladda iyo diimaha waa kala sooceen oo ay kala baxsan yihiin oo qolooyinka diimaha diintooda qabsadaan oo siyaasadda Jarmalka waxba kuma ahan qolooyinka dowladana ayagan hooshooda ay wataa marka way kala soocan yihiin ayuu ku leeyahay oo iskuma darsana su-aasha 4 wuxuu ku leeyahay was ist Deutschland nicht maxoonan Jarmalka ahayn ayuu ku leeyahay eine Demokratie waxaana u xusan ahayn ayuu ku leeyahay dimuqraadi ma ahan ein Rechtsstaat wadan sharci ka jira ma ahan ein Monarchie boqortooyo ma ahan iyo sidoo kaleeto ein Sozialstaat wadan social ahna ma ahan marka toban ahayn wuxuusan ahayn Jarmalka Monarchie oo ah qaab boqortooyo oosan ahayn Jarmalka kale inta kale waayahay wadan dimuqraadi waaye wadan Rechtsstaat waaye sidoo kaleeto wadan social waaye Jarmalka su-aasha 35 wuxuu ku leeyahay womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung intuu ku qarash gareeya ayuu ku leeyahay Sozialversicherungka ah canshuuraha socialka intuu ku qorsheeya ayuu ku leeyahay a Kirchensteuer wuxuu ku bixiyaa ku leeyahay canshuurta kiniisadda Sozialabgaben wuxuu bixiyaa ku leeyahay arrimaha socialka waxyaabaha socialka quseeyo Spenden geldan lacagaha qorsheha la sadaqeeha ayuu ku daraa iyo sidoo kaleeto Vereinsbeiträgen iyo sidoo kaleeto lacagaha la iska qaado qolooyinka farcaynka ah ama ururada wadanka jir laga qaado ayuu ku qarash gareeyaa ku leeyahay marka ayadan teeba sax waxa saxda waxay tahay lacagta la aruuriyo social versicherung wadanka laga aruuriyo wuxuu ku qarash gareeyaa social abgaben waxyaabaha socialka quseeya sida tusaale ahaan oo kaleeto caafimaadka iskuulka wadooyinka iyo waxyaabo kale la mid ah su-aasha 6 wuxuu ku leeyahay welche Maßnahmen schafft in Deutschland soziale Sicherheit maxay tahay waxyaabaha keena ayuu ku leeyahay Jarmalka in qofka social Sicherheit oo haysto in qofka waxyaabaha arrimaha bulshooyinka quseeya in oo Sicherheit ka haysto ama safe uu ka yahay waxaa kamid ah ayuu ku leeyahay die Krankenversicherung waxa uu ku leeyahay canshuurta oo caafimaadka die Autoversicherung canshuurta gaariga die Gebäudeversicherung canshuurta guryaha iyo sidoo kaleeto die Haftpflichtversicherung marka waxyaabaha markaasna la weydiiyay ahayd maxay tahay waxyaabaha wadanka Jarmalka u keenaya in qofka social Sicherheit oo ku jiro waxay tahay Krankenversicherung in kaarka caafimaadka in maanta die canshuur caafimaadka aad bixisid in maanta isbitaalka xanuun walba ka hayo isbitaalka markaad tagtid maanta iska daaweyn kartid waliba adigoo bilaash ah ama lacag aadan bixinin su-aasha 7 waxay tahay wie werden die Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt sidee ayaa Regierungschef madaxweynayaasha iyo dumarka nimanka madaxweynaha iyo dumarka madaxweynayaasha ah inta badan Bundesländer ama maamul goboleedyada maxaa loogu yeeraa magac nooce ay leeyihiin ayuu ku leeyahay a Erste Minister wasiirka koowaad ama Erste Ministerin wasiirada koowaad b Premierminister oder Premierministerin Senator oder Senatorin iyo ta u dambayso ayadan ah Minister President iyo Minister Presidentin marka intaan dhan magace ayaa lagu yeeraa ayuu ku leeyahay kuwa madaxweynaha ka ah inta badan kuwa madaxweynaha ka ah maamul goboleedyada wadanka
marka waxaa lagu yeeraa saaxiibayaal maamul goboleedyaasha dadka oo u hogaamiya waxaa lagu yeeraa minister president ama haddii dumar tahayna minister presidentin oo ah madaxweynaha wasiirada oo kaleeto kale ayaa lagu yeeraa laakiin madaxweyne caadi ah ma qaataan ayaga sida dalkeena oo kaleeto su-aasha 38 die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratische und sozial wuxuu ku leeyahay wadanka Jarmalka waa wadan dimuqraati ah isla markaana wadan social ah waaye a Staatenverbund magaalooyin wadamo isku tagay Bundesstaaten maamul goboleedyo Staatenbund iyo sidoo kaleeto Zentralstaat Zentralstaat waxa waaye wadan hal meel laga maamulo sida Francisco kaleeto oo kale jawaabta saxda ah waxay tahay saaxiibayaal waa Staatenverbund waa wadamo isku tagay ama dawlado isku tagay waaye Bundesrepublik Deutschland su-aasha 9 wuxuu ku leeyahay was hat jedes deutsche Bundesland maamul goboleed walbo muxuu haystaa ayuu ku leeyahay a wuxuu haystaa einen eigenen Außenminister wuxuu haystaa uu ku leeyahay Außenminister wasiirka arrimaha dibadda ama ein eigen Außenministerin wasiirada arrimaha dibadda ayuu haystaa ayuu ku leeyahay b ein eigene Währung lacag ayaga u qaas ah ama magac lacag yuurado kaleeto kale waa Währung marka waxay leeyihiin marka lacag ayaga u qaas ah oo magac goon u leh ay leeyihiin c ein eigene Armee ciidan ayaga u qaas ay leeyihiin ama d oo u dambaysa waxay leeyihiin ein eigene Regierung dawlad ayada u qaas ah ay leeyihiin ayuu ku leeyahay marka waxa saxda waxay tahay maamul goboleed walba wadanka Jarmalku leeyahay wuxuu leeyahay ein eigene Regierung maamul ayaga u qaas ah tusaale ahaan oo kale Berlin waxay leedahay maamul ayada u qaas ah Hessen waxay leedahay maamul ayada u qaas ah Bayern aydan soo kale waxay leedahay maamul ayada u qaas ah marka maamul goboleed walba dawlad ayada u qaas ah wixii systemkeeda ayada qaas u tahay ayay leedahay oo way ka madax banaan tahay qolaha kale inta kale su-aasha 4aad isla markaana ah saaxiibayaal su-aasha u dambeysa qaybteena maanta wuxuu ku leeyahay mit welchem Worten beginnt die deutsche Nationalhymne ereyadee ayay ka bilaabataa ayuu ku leeyahay heesta calanka Jarmalka wuxuu ku leeyahay a waxay ka bilaabataa heesta wuxuu ku leeyahay Volker hört die Signale Einigkeit und Recht und Freiheit Freude schöner Götterfunken Deutschland einig Vaterland marka ereyadee ka bilaabataa ayuu ku leeyahay waxaan saxda waxay tahay heesta qaranka Jarmalka waxay ka bilaabataa Einigkeit wadajir und Recht und Freiheit Recht sharci iyo sidoo kaleeto Freiheit xorriyad intaas ayay ka bilaabataa heesta Jarmalka inta kusoo gogweynaa saaxiibayaal haddii aad wax qalad ku aragtay ama aad wax su'aal qabsid mar walba ila soo xiriiri kartaa inta kulanka xiisa badan kulmi doono waa anigoo qaliija ah fi amaan illah